wafdigan uu hogaaminayay Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon ayaa waxa ku weheliyay wasiirka warfaafinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno kale, waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay xubno kamid ah golaha wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo muddooyinkan ku sugnaa magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiinta maamulka ku meel gaarka ah ee ka arrimiyo magaalada. waxaa sidoo kale soo dhaweynta Ra'iisul Wasaaraha qayb weyn ka qaatay saraakiil cutubyo ka tirsan ciidamada militariga iyo baanbeyda iyo dadweynaha iyo ardayda ku dhaqan magaalada Kismaayo oo gacmaha ku sitay sawirka Ra'iisul Wasaaraha iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana ay ku dhawaaqayeen erayo ay ku soo dhaweynayaan Ra'iisul Wasaaraha. ما تدارن بانهاي ما ملقونايو مريض ساعد كارا مريض ساعد كارا ساعد وعقبو دكوا دلكاغي ما تدارن بانهاي ما ملقونايو مريض ساعد كارا مريض ساعد كارا intaasi kadib wafdigii Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa ay u soo dhaqaaqeen hoygii loogu talagalay oo ammaankiisa ay si weyn u adkeeyeen ciidamada dawladda iyo kuwa Kenya. waxaa intaasi kadib bilowday kulan ballaaran oo ay wada qaateen Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon iyo gudoomiyaha maamulka ku meel gaarka ah ee ka arrimiyo magaalada Kismaayo Sheekh Axmed Maxamed Islaam Sheekh Axmed Madoobe. waxaana kulankaasi xubnihii ka qayb galay kamid ahaa wasiirada arrimaha gudaha, wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada. kulanka markii uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxaa saxaafadda si wada jir ah u la hadlay Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee ka arrimiyo magaalada Kismaayo Sheekh Axmed Madoobe oo sheegay inuu si weyn u soo dhaweynayo wafdiga uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaaraha. aad baan u faraxsanahay xiriiraan munaasabada sharafta leh oo weyn iyo waqtiga aan ugu mudnayn ama ugu muhiimsanaa inuu loo yimaado Ra'iisul Wasaaraha ku aadan maanta. aad baan u soo dhaweynaynaa isaga iyo madaxda sharafta leh la socotay. waxaan leeyahay soo dhawaada Ra'iisul Wasaare Kismaayo ku soo dhawaada iyadoo markalaysa deegaanada kale isbooyinka aad baan idinku soo dhaweynaynaa. waxaan idinka mahadcelinaynaa booqashada aad noogu timaadeen iyadoo ay tahay waqti aad u ballaaran oo Ra'iisul Wasaare golihiisii wasiirada iyo xildhibaanada ka kooban. runtii aad bay kor ugu qaaday shucuurtayada, aad bay noo farxad gelisay. wax aanaan filaynay iyo wax aanaan filaynba waanu ku aragnay, mana qiyaasi kartaan sida aynu raalli uga nahay booqashadayadan Kismaayo oo qayb ka mid ah booqashadii dheerayd oo aynu qaybaha kala duwan oo Soomaaliya aynu ku kala bixinaynay. waxa ay noo muujiyeen dadka Kismaayo iyo guud ahaan dadka Jubbooyinka sida ay dawladooda u jecel yihiin, sida ay raalliga uga yihiin, sida ay maanta u jecel yihiin safka hore taageerada dawladooda iyo dib u soo celinta ammaanka iyo xasilinta Soomaaliya. waa socdaalkii ugu horeeyay ee Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon uu ku yimaado magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu kulamo maalmo qaadanayo uu la qaadan doonaa maamulka ku meel gaarka ee ka arrimiyo gobolada Jubbooyinka iyo saraakiisha ciidamada AMISOM.